nin odayaa yidhi oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin hadduu arkaano inila socdana dhibba ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo sabab hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male wa kaligi buu nool yahay dowr iyo 70 jir saal qarqaday way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan ka soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaaraha ziyaarada waana qaanay u kaadiyo buuri qolkiibu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqada ee suufiyadu barigoor reeraha waa ziyaaradii shaqabale keena orange imku iska dhamaataan malinba ana xaqiiqa Djibouti imku iska dhamaatay xaqiina mooyaan imka ziyaarada waxa isku badishay ilaahay dartii qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay ilaahay dartii baan ku soo booqano ku soo ziyaaranay waxa diyana kuma sidno waxa diyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaab war dad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma anako adeer lacag ma qaadane laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariista wax lacag diida maana ba arkay buu la yaab ay ku noqotay mo khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraadana ku jamaacad waxaan martiya magaalada Hiblaayan ka imanay dadka muslimiinta ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyn waan soo buuqanaynay dhalinyarada masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bil maali wa nafs bil maali naftaydi maalkayga ku soo baxay ilaahayga marka kala hadlan cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray marka wuxuu hadalka adigu leedahay waligii ma maqal buuri waligii wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaa nadari sheeg lacag wad igu diideen wax kala sheegtay waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidka joogaane ina jamaacad u tagto soo salaantay bas intaas aan ka rabnaa ma intaas waan raaci darkii uu soo xidhay daladii khamriga halkii uu ka yimid quradii la socdo shaadkii uu jamaacada u soo raacay wuxuu salaad ma aqaan waxa waxba ma leh iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fadhiisana sidoo sameeyo sameey salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu u sujuudo rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyay ayay linear iyo muuzir iyo shaahir bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafaddu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo galiyay war tabliiq ma soo galin ilaahay baa soo galiyay yaa soo gashay la in yahdi allah bika rajulan wahida khayrun laka min humri na'am ali nabigu markuu hadalka kulaha dagaal buu diray dagaal khaybar buu nabigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nabigu ka daba hadlo wuxuu ali ogow miyaan la dagaalamaa buu ka yidhi la sideed ay ka noqonayaan markaa buu nabigu ali dhageysa buu ka yidhi mid iyaga kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelagiisa casas kaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyagoona lala dagaalamin ay diintii ka dhageysanayaan oo diintii ka qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ogow dacwa muqaddam ala kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamaacadu waxay raadeen waranaku ma soo galine ilaahay baa soo galiyay daaya salaadii maghrib uu la tukaday bayaankii buu la dhageystay cishaayigii buu la tukaday cishaayigii intee soo kaxay bay miskiidkii keenaan haddana salaadii fajr isagoo lugihiisa ku socdo miskiidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhaxbaxay tiisi baa timado ilaahay waa ka manna qaatay wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة
فيدخلها وكي حديث النبي يقولها انت تاكين لك مركي النار توقع ايا الهي جل وعلا قدرك هرغو قرنا ايا الله هرمرين دنا اعماش جنة لو وعين تضوا مالمود عباديستي سدا با لرجين الهي جنة انو كغلي لان خاتمه با لو هاجي حسن الخاتمه وشيء غاليه انك جماعه بري انكو خارجين ودندا غالده شيشيا ايا لا نو شيغay nin muslim oo Soomaaliya laakiin meesha joogno wuxuu jiray 40 kilometer waa booqanay nin odayo daadiisa ku qiyaasan dhowr iyo 60 jir markaas uu yaab jamaacada halkay ka timid xagga ay dalkii baan ka imanay maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inay soo ziyaarana bas ajiib وخرج كيان naga bixiya bil maal iyo nafs oo viisaha wadankan lama helo si aad ku hesheen ilaahay baa bixiya رزقك هدوي ما ده هلكن وادمان أما عزك كاله ما دلك كاله ما حد دون سالمك يا جماعة دي مسكيت كاسي جوجان لأن أنا رعلان دونين لأنه مسكيت حد ما تجاوب حد ما الماء كلنا صلاة ده يدنا إلهي بقولي لكن مر هذا بري ما جوجتان واحدة ها وهني ما بقولي ذلك الصومالي وركي سرباي صوماليا هي كاله صوماليا وركي سوالو قسينه Soomaaliyeed islaamnimadan u socono ugu muuqatee afka Soomaaligu xiiseynaya hayna mari soo noo yimid maalintii dambe baan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socday oday markii istuhudeen dadka Soomaalidu markii istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysay imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay guri shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsata maxay tahay bal sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa weey ilaaga bahin duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadeedu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay professorada jaamacada ay niidhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 عمر الغالب كأمديده buu nabigu yiri waa 76 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab xiriirka adiga ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tiri xiriirka ma ba yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri aw aqligaaga rushdigaaga hadalka siiro basiir jamaacadu u tiri laakiin ninkii habeenkii cishaay barku tukaday gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu yiri hadalkaad igu tiraada ma xalay ka seexan kari waayay hadalka xalay igu tiraadeen waan ka jiibsan kari waayay daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummada khayr u rajaynayo ummada wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'thir saameyn buu hadalkaagu yeelanayaa hada soo islaaxaya ummadan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa qaylada aan qaylina waa ku badbaadaynaa inaan diinta ka wada shaqeyno wadaniyooda insha Allah bishaaro bushay haddii barashada quraanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa quraanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online ee barashada quraanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxa kamida barashada quraanka iyo higaada culumta shariicada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaas sidee kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada